maanta waxaan joognaa hatay tuulada shurko waxaan u nimina soo kormeerno malcaamadii iyo nidaamkeeda runtii malcaamadu si fiican u socotaa ardayduna arday imika inta uu tagnay arday badan baa dhigata ilaa 70 ilaa 60 inta u dhaxaysa ayaa dhigata runtiina ardaydaasi quraanka meel fiican ka gaadheen carabkooduna uu fiican yahay waxaan u mahadnaqaynaa insha Allah sheekha Cabdiraxmaan oo dahawl iyo tacab gashay iyo cid kastoo wax ku darsatay oo ay ku jiraan qolyo qurb joog ah ee hablaha badnaa iyo dhalinyarada oo ka qayb qaatay qayb ka ah marka waxaan leeyahay insha Allah ta'ala hawsha iyo tacabkaasi meel fiican noo maray insha Allah waxaan rajaynayaa inuu maxay insha Allah mustaqbalkeena yarkaasi ay deegaanka dadka u anfacaan insha Allah inana uu amal saalix inoo noqdo qofkaas wax ka geystay marka insha Allah ta'ala kale waan arki doontaan codkooda iyo quraankooda arki doontaan insha Allah marka kale waxaan u niminaan balsi wax u socdaan iyo meesha marinaanu kormeero aadna u fiican yihiin wixii kale oo faahfaahina waa yar ku dardoon insha Allah كانوا جوجنا وشركو نصوب وغني من عامد شركو من عامد شركو هذه أد بيوفي عنتهاي وحبر شديد وافي عنتهاي عروره هنا وبديهين وإلى تطوعاً إلى ميرها سوي عروره هنا وحبر شديد وافي عنتهاي هذه أد بمشي مستقبل كيدو في عيني وحي وحكود السنة وحي دقعن سينا إلى هاي ميسانك حسناتك هاو قدروا وحندوني نادي دتك من عامد وحكود السنة jiray inay dadaal si sameeyaan meeshana aad baa loo degan yahay sidaas aad meesha warkeedu yahay ilaahaygiina waqti raxmadna ilaahay baynu ka rajaynaynaa hadeer waa yar jiilaal raxmadana ilaahay baa inoo soo shubaya markii raxmadu soo shubantana idinka insha Allah waa si camirmaysaa halkan waa marxamadii shurko ubadka waa laga warbixiyay sida looga warbixiyay weeyaan حديث النبي عليه الصلاة والسلام ها خيركم من تعلم القرآن وعلمه مركا وحويا شيخ خير هاي خير هسيه سيف عن بدته وطبعي وأقوم هذين النا وحنا كلكم هذين النا عد الله العد كقيب قادتي حدا دالني يرات هاي يهدي غربة شوك تهاي إن كستو يعني هدي يرتو واحتركوا بدي حق الضمرك aad baan idinku mahadinaynaa ilaahay insha Allah miisaanka xasanaadka ha idinku daro baan leenahay ilaahay idinka ajar siiyo ubadkaana ilaahay dalka iyo dadka wax ku anfaco marka aad baan idinku mahadinaynaa in Allah inta ka qayb qaadatay oo dhawaan u mahad celinaynaa wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye halkan waa shurko mandaqadani waxa isugu yimi waayeel ka yimi Ayargaabo iyo waayeelkii halka caruurtii oo si fiican wax baratay sheekha ilaahay ka tirsiye waanu duubnay waana arki doontaan annana aad iyo aad baanu la dadaalaa oo yaani uga warhaynaa hadeerna waanu ka warhayn doonaa wassalaamu calaykum waxaan maanta halkan isugu nimid خيرك دعويك كصعد شركة إلهي سبحانه وتعالى ماركتي إن لدردر قليو ومارتين محوها وحلسكوي ديو هبسعد كذا إيه مارتين محوها أرضا نشادات كذا إيه مارتين وحبرشدو ده الحمد لله مدرسة أدبو في عنتهاي مارتي aad ba ardaydu maarta quraankooda wanaagsan yahay ilaahay baa mahadsan waxaan rajaynaynaa inay inta ka sii fiicnaato ilaahay idankii ida taqarrara bari sheeg hadii kulli uu sugnaado waa horumar baa laga gaarayaa marka ardaydu aad way wanaagsan tahay carabkoodu waa fiican yahay quraankoodu wanaagsan yahay tiradooduna waa arday kontomeeye ah marka حالة ودنكو iska yar maartay abaara iyo marmar yar guurguura iyo wax saas ma ogi arday inta badan way joogan meel lama aadaan omoteed badan iyo maartay rabitaan badan bay u qabaan waxbarashada dadaal badan bay u qabaan way xiisaynayaan aad bay u jecel yihiin
wax kale maarta ku mashquulaan ay muxuu ay ku laalaabtaan baaban jirin quraanka marka iyo diinta aad u jecel yihiin in anaguna dadaalkaga aan laba jibaaro oo maarta aad ugu dadaalo oo baa waajib oo nasaaran marka khiyaartuna iyo odayaashuna asaas arintaas u yimaadeen inaan wax iska weydiino marka bal meesha wax marayaan isla ogaano marka idinkana waxa idin rajaynaa khayr gabdhaha walaalaha kolay gabdhaha isaga badan yihiin baan filayaa maaratay khayrkan u tafaxaydan ilaahay ba u diray Soomaali ilaahay ku nooleystay meel joogaan ba ayaga oo baa khayrka u tafaxaydan ragiba khayrka iyaga uga horeeya marka waan ognahay dumarka Soomaaliyeed meeshay kaga jiraan kaalinta maaratay diinta islaamka dadaalkeeda iyo maaratay juhdigeeda haday tahay masaajid la dhisay haday tahay madaaris haday tahay waalid laga warqabo haday tahay mid qaraabo la xiriiriyo haday tahay mid meel ka soo qaylay xogaa guna loo tuuro meel walba marka dumarka oo baa khayrka ma u raxmad badan oo naxariis badan sidii Allah ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maaratay xaqooda u burburay quraanka Ilaahay ugu amaanay labada waalidna Ilaahay u kala xaqooda u kala sarreeyay u kala weynaysiiyay oo ka muuqata meel walba marka maaratay dumarka Soomaaliyeed marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinkuna dadaalka aad ku jirtaan iyo juhdiga qaybtiina Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka idinku daro insha Allah goobtan goob khayr horana khayr bay u ahayd maaragtay iminkana goob khayr may noqon doontaa mahbudiin bay noqon doontaa marka insha Allah Allah idin barakeeyo gabdhaha walaalaha Allah idin barakeeyo miisaanka xasanaadka idinkana Allah idinku daro fikirkiina iyo dhaqaalihiina iyo maartay tiradiinaba diinta Ilaahay heeganka ugu tihiin Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro annagana waajibkana saaran waxa weeye inaanu dadka ku dadaalo oo maartay muxuu ahaayay masaajidka wacdiga uu ka socdo oo kutubta laga akhriyo kutub dhamaatay way jirtaa mar labaad waan ku soo celinay abaartaas dadkii kala yar tageen oo ardayda rag loo akhrinayay marka maartay wacdigu waa iska socdaa marka insha Allah waa maartay muxuu ahaayay khayrka waa ku dadaalayna Ilaahay idinkii waxaan ku darayaa dadkan dameesha dhigtaa waa caruur yar oo dhalinyara oo runtii wali da'dii iimaanku qofka u dhadhami jiray da'an badankoodu gaadhin caruurtuna waxa weeye wax gaar ah laga yaabaa inay iska xiiseeyaan oo dhiirigelintu ay number 1 ka tahay marka waxaan insha Allah hablaha muxsiniinta ah ee Ilaahay khayr siiye markii horeba sida dadaalka iyo waxa weeye juhdigu ka muuqdo ugu dadaalay oo waxa weeye kharashkooda iyo maxay ahaydeen wixii tacab ugu horay in insha Allah barnaamijka xiga uu noqdo in yararka waxa weeye quraanka baranaya dhiirigelin loo sameeyo 6 bilood oo midalan ama sanadkiiba laba tartan oo kale oo xagga quraanka ah loo qabto oo dabadeedna dadkii waxa weeye dhalinyarta caruurta loo tuso yool ah qofkii halka quraanka ka gaadha in maxay ahaydeen abaalmarin la siinayo taasi waa qodob quraankii bay waxa weeye dhalinyartii iyo mataqaana caruurtii arrinkaas jeclaysiinaya arrinka kale isaguna aadka muhiimka u ah waxa weeye taas soo raaca waa caruuro waxa weeye in saacadna waxa weeye quraanka la xifdisiyo oo wax la baro saacad kalena madadaalo iyo maxay ahaydeen la yara ciyaarsiyo oo ay noqdaan meeshii meel ay u soo hiloobaan insha Allah aanay noqon maxay ahaydeen meel ay inta badan ay ka cararaan ama ay ka cagajidaan taasina waa iga fariin inta kale ee soo raacda waxa weeye dadka tuuladu inay insha Allah yaryarka iyo waxa weeye macallimiin iyo macallinkaba inay si gaar ah uga warhayaan sidii hore kulli markii hore uga warhayeen si aad u fiican bay ahayd inay mar walba ka warhaynta iyo waxa weeye ku xidhnaanta xalaqaadka masaajidkana ay aad iyo aad u laban laabaan quraan oo kaliya aan ku koobnaane masaajidkan insha Allah kulli sheekh soo inoo sheegay xalaqaad ba ka socda xalaqaadka diiniga ah cilmiga ana yaryarka loo soo diro oo dadka waaweyn iyo dadka yaryarayba ay aad iyo aad uga wada faa'iideystaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا
كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.